السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا هند حسن عليكم ولا در هند دقي هدي أي تمرك ورئيسي الصوب وقت الجنة الكيجا سبسكرايبنا سارتد وحوين معهن هدي أدلاج يسارتد نوحي تسيني سينا دي رجلين يسيد كومنتين وواحد وبدن قلبي جيجا كديجو إن الله يحي تضول على يجعل هذا ما سنته ما أنت وحربا يعني ذكوسي ديران ما أنت وحربا إن كهل برنامج كاسمه دانتي يهرجيسه وحنو ملاين يا برنامج اسمه دانتا iyo hargeysa ay inta ka degteen hadana dib loo soo celiyay in ku jirto siyaasad weyn aan bal insha Allah laba dhinac kala qaadno horta waxa jirtay magaalada Nairobi hadda ka hor inuu imaaday Maxamed Said PK oo ah fanaan Soomaaliyeed laakiin ka soo heeysa dhankaas Soomaaliland waxaan u maleynayaa inuu yimid meesha inuu show ku qabsado laakiin showgiisii la siyaasadeeyay oo la dhibay oo la maaragtay la qasay waliba maalmo oo meesha ku sugnaaday isku dheeriganay intaas kadib Maxamed PK wuu laabay wuxuuna dib ugu laabtay Somaliland wuxuuna dhigay show aan isleeyahay ma jirin Somaliland show ka weyn isma dhaantu hadda way iska bixin Muqdisho markay tageen way ka sii duuleen Hargeysa ay ka sii tageen Hargeysa markay ka tageen waxa loo diiday in ay Hargeysa gudaheeda ku laabtaan isla markaasna waxa leeyahay orod dib u laabto oo ka laabta meeshaad ka imaadeen laba maadaba waa la dhigi karaa Hargeysa sida lagu yaqaan horta fanaaniinta iyo dadka caanka ah oo magaalada Muqdisho ka imaado ama dadka reer Hargeysa oo inta soo baxaa Muqdisho imaada inta badan waa la xiri jiray laakiin sida kale haddaan isku taagno kaba soo qaba Big Bro isma dhaanta Big Bro soo qabo Big Bro waxa waa qof reer Nairobi ahay waagaas Maxamed PK waxa lagu shaqeeyay la dhaayay waxay isqabteen isku dhaceen idlayara asaas yeelay ani walow aan islahayn idlayara barnaamij siyaasadeyn karo wala idlayara qof qalbi fiican maadaama hadda aan islahayn markay Big Bro wuxuu jooga Muqdisho waagaasna waxay isla shaqeynayeen idlayara armaa loo diiday inay sidaas u galaan wallahi xog xasaasi waay sababtoo wax kastaba wax ka filo sababtoo ma jirto qof dhan inta duulay magaalo markii uu tagana loo diiday intaasoo kunoo qofood oo YouTuber leeyana ay maaragtay ay sugayeen meesha waxa ku jirta siyaasad waxaan u maleynayaa in ay tahay saxan ku gud sidaan jeclahay